salaamullaahi calaykum asxaabta sharafta badan ku soo dhowaada kanaalkeena wax ka baro. maanta waxaa marti inoo ah walaalkeena Axmed Shaakir, wuxuuna la daadihin doonaa barnaamijkeena maanta. ku soo dhowaada barnaamijkeena maanta. dambaalo macaan badan. qodobka koowaad, mararka qaar waxaa wanaagsan in qofku iska aamuso inta uu dadku u sheegi lahaa dareenkiisa, sababtoo ah way ku sii dhaawacaysaa keliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan laakiin aysan ku fahmi karin. qodobka labaad, waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynan rabin inaan aragno, laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynan rabin inaan dareenno. aad bay daruuri u tahay inaan xushmeyno dareenka dadka kale. saddexaad, kala fogaanshuhu ma baabi'iyo xiriirka. ma ahan inaad aragto qof jecel idinka dhexeeyo maalin kasta. muhiim ma ahan joogitaankaada qoloftaada, waa waxa qalbigaada ku jira. dadka inta badan ilmeeya ma aha dad jilicsan. oohintu waa sida qalbiga u hadlo goortii bishimahaaga aysan sharixi karin xanuunka aad dareemayso. qodobka shanaad, waxaa jira hadallo uu waxyeeleeyo qalbiga si ka daran seef lagugu dhuftay. waxaa jira hadallo qofku ku noqda warankaaga taagan wadnaha noloshiisa oo dhan. ka taxadar hadallada aad dadka kale kula hadlayso. qodobka lixaad, jeclow wax qalbigaagu rabo, ma aha waxa indhahaagu arkaan. ha ka welwelin waxa dad kale yidhaahdaan ama kuwa arkaan. kani waa jaceylkaadii, ma aha kooda. qodobka toddobaad, jeclow ama ka tag qalbi ku dhaawacay, balse marnaba adigu ha dhaawicin qalbigu jecel. run waa loo ekaysiin karaa dhoola caddayn iyo qosol been, laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah. qodobka sideedaad, xiriiro badan ayaa burbura. sababta ugu weyn ma aha jacaylka oo meesha ka maqan. jacaylku had iyo jeer waa joogaa, ma tago. qof ayaa keligii aad wax u jeclaada, halka qofka kale isaga jiray ciyaar iyo khiyaali. qodobka sagaalaad, ha u ogolaan xiriir hore oo noloshaada ah in uu burburiyo farxadda mustaqbalkaaga. nabarka iyo xagtintu waa inay ku xasuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay, ma ahan halka aad u socoto. qodobka tobanaad, dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda si kastay u weynaadaan daana ugu darsoonto, sababtoo ah quruxdooda marnaba ma ahayn wejiga, waxay ahayd qalbiga. salaamullaahi calaykum.